magacaygu waa Batuul Xaaji Nuur. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Batuul Xaaji Nuur. Waxaan ahay gabdhii barisamaadkii aan burburka ta ciyaari jiray. Waxaan u ciyaari jirnay naadiga badda waqtigii nabadda. Burburkii waxaan u ciyaaraynay naadiga Horseed Caawi maalin. Maanta waxa kulankeena waxaan isugu imaanay sidii loo horumarin lahaa gabdhaha Soomaaliyeed ee aan haysan tababar, aan haysan garooman, aan haysan tasiilaad in aan maanta aan u soo kacnay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaan ugu soo dhaweeyay xafiiskooda anagoo la kaashanayna howlaha aan u socono ee intaas tahay garoomadii way yeelaan laakiin way burbursan yihiin gabdhihii oo iska arday ma haystaan tasiilaad waxay u baahan yihiin baabuur wax walba waxay haystaan mala anaga waas aruurinay urur ahaan ururka haweenka sportiga aan soo nooleen aan diyaar u nahay doo la yiraahdo inaan gabdhihii macallimiinta tababar u furno tababar siino aan wax wixii loo qaban karo seminaaro bixino ayaan diyaar u nahay insha Allah taala waxaan la kaashanaynaa ururka haweenka Soomaaliyeed ee qaranka. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Nasre Maxamed Maxamuud Nasre Yalaay ka tirsaneed naadiga wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta LLBBJyo burburkii ka bacdi waxaan soo saarnay waxaan shaqo badan aan qabanay ilaa waagi burburka kadib ilaa ay hadeertaan waxaan ku jirnaa tababar gabdhaha soo saarnaa qarankay galaan kuwa kale soo saarnaa qarnay galaan ilaa hadeertaan shaqadii ma joojin gabdhaha soo tababarna inkastoo hadda aan ku soo kordhinay gabdhaha kubadda cagta handballka binge tennis athletic kulli waxaasna hadda waa wada qabanay maadaama aan hadda aan isku waafaqnay inaan sameysano ururka horumarinta gabdhaha isboortiga oo gabdhaha dibadda jiraan iyo gabdhaha gudaha jira kulli ay ku midaysan yihiin insha Allah mar dhowna waa soo shaabixineena haddii Ilaahay yiraahdo marka hadda xataa waxa jira ciyaariye gabdhaha horyaalada la furay magacoodan ku ciyaareena gabdhaha horumarinta isboortiga magacoodan ku ciyaareena ururkaas marka laakiin waxa naga maqan oo aan haysanin wax taa kuleena malaha garoomadii kii anaga horta gabdhaha ku toobari jirnay imaan Batuuli anaga aan joogi jirnay waxa ay dugsiga Banaadir oo gabdhaha inay ku asturnaayeen hool oo xiran oo ahay kii dada naga qaad Turkida naga qaad gabdhaha marka waxa waay degmooyinka tagnaa degmooyinka marka waxa waay saacad waxa la siinaa kubadda cagta saacad waxa qaadanaa wiilishi saacad waxa la siinaa gabdhaha oo joogtaan ahayn oo maalmo leh marka gabdhaha waa iska rafaadooyeen mar tageena intaan laga soo burnaa kana tageena degmooyinkan tagnaa inta badan degmooyinkan hadda ay waxay ugu xiran tahay kubadda cagta u xiran laakiin saas ay tahay iska helnaa maalmaan waa iska helnaa magacaygu waa Caasho Cumar Geestiir gudoomiyihii hore haweenka qaranka Soomaaliyeed maanta waxaan aad ugu faraxsanahay gabdhaha isboortiga legendiga ah oo meeshaan noogu yimid ururka haweenka qaranka noogu yimid waa la socotiin ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waa urur la aqoonsan yahay oo maaragta dawladii iyo position fiican ku jiro ujeedadiisana waxay tahay dumarka caqabadaha iyo dhibaatooyinka haysta inay wax ka qabtaan dhan walba haday noqoto siyaasad haday noqoto arrimaha bulshada haday noqoto dhaqaalo howlo badan ay wadaan ee isku wadaan burburkii markuu dhacay caqabadihii way sii bateen meel ay ku ciyaaraan ma haystaan dhaqaalo ma aragto lagu kaba ma haystaan markay noqoto isboortigina hadee waa ku adkaatay isboortigana waa ognahay inuu yahay isboortiga ka shaqeeya nabadda isdhaxgal bulsho ma aragtay caruurta dhalinyaradana looga ilaaliyo waxyaabaha xun sida daroogada markay waqti ay helaan inay jirkooda ku dhisaan oo caafimaad ahaan isboortiga aadaan wax u fiican inay tahay marka hadaan nahay ururka haweenka Soomaaliyeed aadaan u soo dhaweeynaa sababtoo ah inaan iskaashano oo loo baahan yahay hadaan haween nahay lagana shaqeeyo dhan walba oo caqabad ka jirto si aan u helno nabad iyo amni si ay u helaan dumarka inay ka qayb galaan horumarka wadanka marka hore waxaan soo dhaweynay oo aan ku faraxsanahay inay maanta yimaadeen xarunta ururka haweenka qaranka ururka haweenka horumarinta isboortiga oo ah gabdho waay araga gabdho door lixaad ka soo qaatay isboortiga Soomaaliya gabdho taariikhda Soomaaliyeed ku jira oo aad iyo aad macruuf ah oo laga yaqaano
dalka guud ahaantiis iyo gaar ahaan magaaladan caasimadda ah Soomaaliya way burburtay burburkeeda kadibna dib bay u soo kabanaysaa dib u kabashadana waxa kamid ah waxa ugu muhiimsan in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo isboortiga doorka haweenkuna uu banaanka yaalo oo ay kaalinta ay ku lahaan jireen haweenka Soomaaliyeed isboortiga Soomaaliya ay ku yeeshaan si taa loo gaaro marka inay ururkan uu aas-aasmo oo gabdhihii isboortiga ahaan jiray ay dib u soo aas-aasaan u istaagaan ka shaqeeyaan waqtigooda geliyaan way aragnimadooda iyo aqoontooda ay maaragtay ku biiriyaan dalka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waa wax loo baahan yahay runtiina haddii maanta ay ururku uu hana qaado Soomaaliya oo dhan uu gaari karaa Soomaaliya oo dhan uu wax ka bedeli karaa amniga dalka iyo dhibaatada dalka taala waxyaalaha lagu xallin karo waxa kamid ah integrationka iyo isdhexgalka isboortiga wax wada qabsashada iyo maaragtay is-aaminida marka waxaan aaminsanahay ururkan in loo baahnaa inuu hana qaado oo dalka ka shaqeeyo haddaan nahay ururka haweenka qarankana waxay noo tahay farxad iyo maaragtay iyo karaamo noo tahay inay noo yimaadaan annaga marka waxay kamid tahay waxyaalaha goolka ah oo ururka u yaala in isboortiga la horumariyo doorka haweenka qaas ahaan waxa hadda ka hor la sameeyay gabdho dhalinyaro ah oo is urursaday oo kubadda cagta isu soo urursaday ayaa waxay heleen martiqaad dalka South Africa inay ka qayb galaan ciyaaro ay ka maaragtay gabdho ku ciyaarayaan inay Soomaaliya ka mid noqoto waxay waayeen cid taakulaysa waxay waayeen maaragtay hay'ad gacan ka siisa ururka haweenka qaranka soo dhaweeyay ururka haweenka qaranka tigidhada ay South Africa ku aadi lahaayeen isagoo budget haysan isagoo mushaar qaadan isagoo iska xaqabso ku shaqeeya ayaan waxaan sameeynay xataa waa u soo deynsanay $16,000 ayaan gabdhaha u deynsanay sababtaan ugu deysanana waxay ahayday inay niyadda ka jibin marka annaga maadaama aan mar kasta u soo jeedno oo u taaganahay in gabdhaha la horumariyo la dhiirigeliyo 12 gabdhood iyo ilaa ma hadda la macallimiintoodii iyo dadkii maaragtay seeriga u hayay garsoorayaashoodii iyo dadkii soo abaabulayba waxay nagu noqotay niyad jab inay ku dhacayso haday waayaan fursadaas ururku dhexda u xirtay delegation uu mataqaanaa u abaabulay deynu marka hore u qaaday deynkii uu qaadayna gacmahooda haddana ku soo ururiyaan oo gabdhaha uga soo ururiyaan oo deyntii ku gudeen waxay tageen South Africa gabdhihii ururka haweenkaasi raacay markaan South Africa tagnay waxa ka sii horeysay horta South Africa fiisaha lagu galay waxa laga qaadan karaa Ethiopia oo kaliya safaarada ay inta ku leeyihiin ma jirto waxaan dirnay gabdhaheena ururka haweenka qaar kamid ah waxaan u dirnay Ethiopia safiirkan xiriirinay waxaan fiisahaas u baahanahay waa in loo soo dedejiyaa safiirkii South Africa la hadlay ballan uga sameeyay fiisii u soo qaaday waxa kale oo imaanaysay 6 gabdhood oo ka imaanaysay meesha la yiraahdo Ingiriiska oo ayaguna Soomaalinimo ku imaanay oo qarashkooda iska soo bixiyay runtii inkastoo laga badiyay kaliya meesha istaagno oo magaca Soomaaliyeed geeyno waxay ahayd muhiim marka aad iyo aad marka ugu faraxsanahay ruucadaagi isboortiga gabdhihii isboortiga ku caan baxay gabdhihii wali qurux badan oo dhalinyaro wada ah oo aan duqoobin oo maaragtay jirkoodu dhisan yahay inay haddana rabaan inay gabdhihii kale gacan siiyaan oo urur u sameeyaan oo kor u soo qaadaan gabdhaha runtii aad aan ugu faraxsanahay anigu gabdhaan aqaana haday gabdhuhu wax u istaagaan wax hor istaagi kara ma laha oo miro dhalaya insha Allah taala calankan Soomaaliya maanta ay haysato iyo gobonimada ay haysato gabdhaha u istaag gabdhaha dahabkooda gaday gabdhaha naftooda bixiyay gabdhaha guubaabiyay ragga oo ku guubaabiyay in heeriyada gumaysiga ka qaadaan dalka gabdhaha horseeday oo maaragtay gabayo iyo baraamburo iyo hadallo qiiro leh u jeediyay ragga oo guubaaba ah saasay gobonimada ku dhalatay marka haday intaanoo gabdhaha oo ogahay inay wada kulligood liidaran yihiin oo hogaamiyaal yihiin oo aqoon-yahan yihiin oo waxgarad yihiin oo way arag yihiin ay kaceena Soomaali sportiga cirku maraya adduunka qaaradahan ka qaadayna haddii Ilaahay